ama magaalada aad ku xidhan tihiin waxaanu ku xidhanna walaal magaalo Liibiya kamid ah xagga bartankeeda. ma sixi kartaan meesha aad ku sugan tihiin? magaalada magaceeda walaal aad ma garanayno. sidee baa ku ogaateen inay magaalo bartanka ay tahay? sidee meesha laydin geeyay marka hore? inay magaalo bartanka tahay waxaan ku garanaynaa dadka madow ayaa aad noogu badan. waan gartay. marka hore sidee baad gacanta ugu gasheen qolada magafayaasha ah ee hadda meesha idinku afduubay? waxaan gacanta ugu galnay walaalo waxaanu ahayn inama kasoo taariibin Somaliland badda Yemen soo maray kadibna Suudaan soo maray kadibna waxaanu soo galnay magaalada Khartoum kadibna halkaa inama badan ayaa nalaga xidhay kadibna anaga oo 15 qof ayaa waxaan nimid meel u dhow saxaraad Liibiya iyo Suudaan kadibna inamadii kale ayaa la soo furtay oo magafayaashii baa lacag bixiyay kadibna sidii ayaanu ku nimid halkan anaga oo ilaa 4 qof ayaan ka xasuustaa hal inan ayaa saxaraana ka dhintay inteedii kalena waxaan toos u nimid magaalo Kufra Layra oo kamid ah dalka Liibiya. marka hadda tiradiinu waa 12 dadkii intii kale idin la socotay maxaa ku dhacay? dadka intii kale nala soo socotay waxaanu nimid adigu bishii 9aad ee sanadkii hore ayaanu nimid. hadda dhibaatooyinka ugu xoogan ee meesha idinku haysta maxaa kamid ah? hadda dhibaatooyinka ugu xoogan haysta subaxii alle soo gudubay intii aan meesha nimid waana la garaaca subax kasta waa la garaacaya hablaha habeenkii waa lala baxayaa waa lasoo faraxumaynayaa ragga subax kasta ulbaa u qoran lugaha qaar baa ka naafoobay dadkii ugu badnaa ee aan meesha ugu nimi ee Soomaalida u badnaa ee aan ugu nimi 300 iyo dheeraad bay gaarayeen imkana meelay joogaan dadka badankooda badda ayay galeen way dhaafeen halkan lacagtoodii baanay baxsadeen kadib annaga waxaana ceeshee lacagtayada 12 qof baan kaga saarnay 300 iyo dheeraad. marka waalidiintiin iyo xiriir ma la samayseen? waalidiintayadii walaal waxay u badan yihiin dad agooma dad aan waxba haysan dad jilicsan qofka duruufta haysata waxaa nagu jira dad halkan ku indhabeelay sida in madaxa nalaga garaacay had iyo jeer markan waalidkeega la hadlayno waxaa lasoo qaadanayaa in loo bixiyo BDR oo si xun na loogu qaraaco oo si xun na loogu jirdilo waalidkeyga way naga naxaan dadka badankooda waxaa jira qaar badan